Saaxiibku waa qof ka turjuma shakhsiyadaada. Shakhsiyadaaduna waa habka aad u fikirto, u dhaqanto, una muujiso dareenkaaga. Waa waxa aad naftaada ku sifayso oo ay turjuntaan dadka kale. Qof walba oo bani'aadami wuxuu jecel yahay inuu yeesho shakhsiyad wanaagsan. Ma jiro qof jecel inuu yeesho sifo xun ama lagu barto shakhsiyad xun. Haddaba, saaxiibka wanaagsan door intee le'eg ayuu ku leeyahay shakhsiyaddeena? Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Saaxiibtinimadu waa xidhiidh dhex mara aadamaha oo ay sameeyaan laba qof iyo in ka badan. Waxay kaga duwan tahay xidhiidhada kale waa mid ku dhisan ixtiraam laba dhinac ah oo kalgacal iyo is-qiimeyn ku dhisan tahay. Qofka saaxiibka kula ah waxa uu dadka kale kaga duwan yahay, waxa uu ku garab taagan yahay mar kasta oo dhibaata ku haysato. Iyadoo haddaba saaxiibtinimadu u qaybsantaa laba qaybood: saaxiib wanaagsan iyo saaxiib xun. Saaxiibka xun ayaa kugu haga tubta qalloocan, isagoo ku seejiya dantaada, ku habaabiya, kana dhiga mid aan waxba kusoo kordhin karin dadkiisa. Waxa uu kugu dhiirigeliyaa xumaanta, isagoo kuu qurxiya macaasida. Waxa uu noloshaada ka dhigaa mid mugdi ah, mar walbana wuxuu kula jecel yahay inaad noqoto sidiisa oo kale. Halka uu saaxiibka wanaagsani uu yahay mid aad isku raacdeen dabeecad wanaag, dulqaad badnaan, deeqsinimo buuxda, iyo dadnimo wanaag. Waa saaxiibka aad wada leedihiin hal hiigsi iyo hal himilo. Waa saaxiibka aad wadaagtaan aragtiyaha togan iyo weliba wax kasta oo manfac leh. Waa saaxiibka kuu hagar baxa talada, taageerada, toosinta. Waa saaxiibka kuu muujiya marka dhibaata ku haysto naxariista, naruurada iyo niyad samaanta. Saaxiibka wanaagsan ee noloshu iskiin bartay, qalbiyadiinuna iska raali noqdeen. Waa saaxiibka ku fara wanaagga, kaa reeba xumaanta, kugu hambaliyeeya guusha, kula wadaaga guuldarrada. Waa saaxiibka markaad kufto kusoo qabta, kuna dhiirigeliya halganka nolosha. Waa saaxiibka waa midka aan ka nasanin inuu ku xasuusiyo xuska Ilaahay mar kasta si uuna maankaagu u qallalin. Waa saaxiibka aad ku qabto kalsooni dheeraada, laabtaadana aad u furtay. Waa midka aad ku faanto mar kasta iyo madal kasta. Waa kan rajada ku geliya ee aan ku niyad jabin. Waa kan kaaga sheekeeya isbeddelka nolosha iyo marxaladaha waqtiga. Waa ka sirahaaga iyo ceebahaaga astura, wanaaggaaga iyo guushaadana jecel. Xikmad ayaa odhanaysa, saaxiibtinimada uduggeedu waa rajo, malabkeeduna waa daacadnimo, saxansaxadeeduna waa kalgacal. Waxay ku baaba'daana waa geeri oo qura. Waad ku mahadsantahay daawade haddii aad nala joogtay ilaa dhammaadka muuqaalka like saar, sidoo kale subscribe channelka haddii aad nagu cusub tahay oo nagu soo biir.